Bismillaah. Waxaan soo gudbinayaa gabay yar oo gaaban magaciisana la dhaahdo Baadidoon. Waayadan duruus gabay ma tirin dunuunuciisiiye, ma daliishan maansooyinkii diiranaan jiraye, se yeeshee markuu soo duxaan dib u abuuraye, maantana dareen bay wado waan damqaanayaye, arrimahan iswada dooriyaan dood ka furaya. Dunidayn ku noolahay markaan baadhay dulucdeeda, nin waliba hankiisuu ku degay doogsi nololeede, daruuraha ayay daba mareen dowladaha qaar, waxbayaana sii dadin runtee waanu dagayaye, damiirkeenni Soomaaliyey waa la doorsadaye, dagaalaan xal lagu gaadhin bayn dabada haynaye, hadba labadooda isxigaa laysu dilayaye, dabiinkuu shisheeyuu dhigaa la ysku dooxaye, qalbigeennan daxalaystay baan cidi dareemayn. Lixdankii hayaankii la diray daaqsin lama geyne, duuflaalayuun baynu nahay tan iyo doorkaas, maandeeq hashanii diihnayd waa la daayacaye, dambarkeeda waan rabay inaan marun durduurtaye, se yeeshee duruufo dhaco doorkan maan heline, ana daali maayo intaa dayday baan ahaye, inay tahay dibboodiga lumoo dunida meeraya, iyo inay dayso mar hore dilay waraabuba, raacdadeedii waan daba socdaa dayna kari maayo. Hadalkana dubaaxdiyo haddaan diirka ka caddeeyo, dunjigeenna Soomaaliyey waa la daagayaye, inaguna ma diidno ma nihin dowlad nabadeede, hadba dowri soo duulay bayn danab ku sheegnaye, daba dhilib shisheeye ayayn daba qamanaye, dabka reer galbeed shiday ayayn dagabka saaraa, se yeeshee ma doorsamo hankaan dooji leeyahaye, rajadan dugaalaya baan daanka ku hayaye, gobonimo in dub loo xidhaa ma aha deel qaafe, shacabka wax badan daalanee diga gubyoonaya, iyo daalka nagu raagayee lala dadoonayo, ducuun baan awoodaa inaan daayinkay fare, allahayow wadaa deeq lehee dibta naga caaw.